dugsiya dhiga jirnay dugsiga waa ka baxnay waana la soo buriyay haddana la soo buriyay waxay la ilmeynaysaa daruufyo culays dhaqaale oo gabadhan yar ku qasbay inay dawarsato waxay u qaraab tagtaa aroor walba xaafadaha iyo suuqyada muqdisho si caruur la lalatay oo agoona iyo hooyada oo naafa ay u garab istaagto hooyada maadaama jiis tahay ee curyaan tahay anaa u garab istaago wayna soo qaraabi jirtay anaa u qaraabo haddana maantana waxaad iga cusanaynaa inay walaalaha muslimiinta na qabsadaan waxna siiyaan aan jecelnahay marka agoonaan nahnay waa u ducooyeynaa bakaari iyo aa kasoo qarabtaa meelaha sabta luuqa waa bac u qaataa waa qarabtaa dabka waxaa ka codsanayaa dugsiyaa dhiga jirnay dugsiga waa ka baxnay waana la soo buriyey haddana la soo buriyey waa iska guryaha iska jooga guryaha iska jooga meelaha oo sabta bac qaataa hooyo Khadiija Nuur Abiikar oo dhashay caruurtan agoonta isla markaana ah qof naafa ayaa u qaraab tagi jirtay caruurtan aad u jeedaan ee agoonta balse hadda waxay gabtay qaraabkii waxaan dhulka dhigay xanuuno kala duwan oo isbiirsaday maxaa ilmaha bakaaraha soo qaraaban jiray hadda waa xanuunsanahay dhiig kale igu dhacay gaas igu dhacay karsaroola iga dhacay maqaarka xataa lugaha waa arkaysiin maxaa ahayd maqaarka waa ka jiranaa lugaha waa kana lugta waa tanaa meeshaas waaye jilbaha caloosh cudurkaas igu dhacay waa xanuunsanahay maxaa kirida $60 ku takanahay kirida waa leeyahay leeyahay biyaha waa leeyahay korontada waa leeyahay dugsiga ilmaha waa leeyahay soo buriyay marka xooada saakaba dab looma shidin waxa haysana male gabadhan yar oo ilmaha u roon xoo ahayd markii wax la waayo ee magaalada bac qaadataa meelaha oo sabta lagu qabay soo qaraabtaa aniga waa soo waaye walaalaha muslimiinta waxa ka codsaynaa inay maxaa ahayd garab istaagaan caruurta ay dhashay hooyadan waxay wajahayaan culays dhaqaale waxayna xustay hooyo Khadiija in aysan heli karin waxa ay isku daaweeyaan sidoo kale waxay tilmaamtay in dugsiga Quraanka laga soo ceeriyay arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha waxa adiga codsaa waxa isku daaweeymaayo cunugan xataa uu jiray madaxiisa waa kana saas oo ruqruqay maxaa aniga saasa noqday marka saas dhibkaasaan haysto waxa maanta u soo baxa banaanka oo isoo bixiyay dhibaatada oo haysta tarteed u soo baxnay marka xooada walaalahayga muslimiinta oo muslimiinta u soo baxay inay kaalmeeyaan ee karab qabtaan waxa idin sheega maxaa inaa shaqo abuur ii sameeysiin ilmaha waxa ku karsado mal kiri bixi ma kari biyo bixi ma kari goroto bixi ma kari dugsi dhiibi ma karo gaari ku socdo ma haysto maxaa ahayto mooto oo ku socdo gaari xataa dilaysiyo isku wadi karo meel bacaadaha jooga ka mooto waa iska jeclaa taahilay oo ku socdo in laysiyo oo wax ii qabatiin aan jeclahay muslimiinta walaalaheeyow dhibkaas ay haysto dadka Soomaalida ee daawanaya ayay ka dalbatay garab istaaga maadaama aysan awoodin u shaqeynta caruurta ay dhashay caruurtayda waxa waaye 2 gabdhood iyo 2 wiil midtaasa u roon marka maalintii oo dabka oo maxaa ahayd dalashida waayo ayada bac qaadato macnaha meelaha sabta ka jirtay aataa iyagu soo qaraabata ani marka hore ana bakaaraha aad jiray hadda maxaa inta bilooda xanuunsanay anta wax oo garab istaagay male maxaa ahayd adogood nin lama dhalanin waxa la dhashay ma ahayn ummadii oo hay anigana maxaa ahayd habartay adogay waa dhinteen bulshada ay la wadaagtay telefoon ay kala soo xiriiri karaan si loo garab istaago hooyada naafada ah iyo caruurta ay dhashay agoonta magacayga waxa la yiraahdaa Khadiija Nuur Abiikar Khadiija Nuur Abiikar furahayga waa 5 15 26 9 waa furaha waa 5 15 26 9 kaasa laga soo wici karaa mar walba waa ii shiday asaa laga soo wici karaa walaalaha baahi weyn oo qaba walaalahay oo banaanka dal iyo dibad ku nool oo meel kasta iga fiirsayaan oo meel walba iga arkayaan maxaa ay tahay waa u baahanahay gacan weyn inay isiyaan ee isoo karab istaagaan u baahanahay daawadayaal sidaad arkaysaan qoyskan waa qoys agoon ah hooyada dhashana waa cuuriyaan aabahoodna mar hore ayuu geeriyooday waxay ku dhibaataysan magaalada Muqdisho waxayna dadka Soomaalida ee daawanaya ka codsanayaan inay garab istaag u muujiyaan isla markaana si degdeg ah ay ugu soo gurmadaan waxay sheegeen in iskuulkii iyo sidoo kale dugsiga Quraanka Kariimka laga soo ceeriyay maadaama aysan haysan wax qarash oo isaga bixiyaan dadka Soomaalida ee daawanaya ayay ka codsadeen inay garab istaagaan
maxamed xuseen axmed RTN muqdisho.